kulankani oo ka qabsoomay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa lahaa mid lagu gorfeynayay cilmi baaris qaadatay muddo 3 sano oo ay sameysay maxadka horumarinta iyo cilmi baarista ee loo yaqaan soo raadi waxaana kulankaasi ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha mas'uuliyiin kala duwan oo aqoon u leh arrimaha dawladaha hoose iyo xubno ka socday dawladaha hoose ee dalka ugu horeyna waxa kulankaasi ka hadlay agaasimaha guud ee hay'adda soo raadi Harun Yusuf waxaanu sharaxay cilmi baaristani ay sameeyeen kulankan maanta halkan aan isugu nimid waxa soo qaban qaabsay hay'ad la yiraahdo soo raadi ama maxadka horumarinta iyo cilmi baarista Somaliland ujeedaduna waxay ahayd in aan soo bandhigno daraasad iyo waxqabad aan ka qabanay dawladda hoose Hargeysa muddo dheer in aan soo bandhigno cilmi baaristii wixii nooga soo baxay iyo mashruucii dambe ee wixii cilmi baaris soo saartay ka jawaabayay marka ujeedadu weyn waxay ahayd iswaraysi warbixin iyo talo wadaag dadkan aan isugu yeernay kulankanna waa dadkii inta badan ay khuseynaysay ama ha noqdaan xildhibaano ama ha noqdaan dad khibrad u leh dawladda hoose ama ha noqdaan haween ama ha noqdaan dhalinyaro dadkeena oo dhan inta badan waa wax khuseeya waana wax ay xiiseynayaan dawladda hoose marka geesteeda Zainab Yusuf Xaaji Aadan ayaa ku soo dhaweysay marti sharaftani kala duwan munaasabadana ay ku soo bandhigayaan cilmi baaristani ay sameeyeen dhankooda aqoon-yahankii kala duwan ee madashaasi ka qayb galay ayaa halkaasi ka hadlay waxaanay bogaadiyeen mas'uuliyiinta hay'adda soo raadi ee sameeyay cilmi baaristani soo raadi waxay 3 sano ka soo shaqeynaysay ma aha final wax ka dhiman ma jiro way macluumaha waxa la idinku yeeray waxba ka dhiman idina waxa ku soo beeday 3 sano waxa ka shaqeeyay wax ka dhiman forumku way aragnimaday leeyihiin iyo aqoontii leeyihiin iyo diversity ay kala yihiin waxa u dheer kasug waa dad u diyaara inay ka qayb qaataan isbeddelka ay rabno ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland waxaanu soo dhaweeyay cilmi baaristani qaadatay muddada 3 sano hadaan anagu nahay wasaaradda arrimaha gudaha arrimaha halka laga hadlayo runtii aad bay muhiim noogu yihiin waxayna u yihiin barnaamij socda oo la yiraahdo GPLG Joint Program for Local Governance barnaamijka qiimeyntiisa waa aragnimo loo isticmaali karo noqon doona wax halka lagu soo bandhigayo daraasadan ay sameeyeen soo raadi maanta marka la eego waxa laga yaabaa golayaasha deegaanku inay leeyihiin dhaliilo xagga hawlqabadkooda xilka iyo waajibaadka saaran adeegyada ay fulinayaan xagga sharci dejinta heer deegaankooda marka dhaliilaha maanta halka lagu soo bandhigayo ujeedadoodu aanay ahayn in lagu xumaynayo iyo in magac lagaga dilayo sumcadil ahayn ee ay tahay in la sii hagaajiyo wax toosin waa Idris Abdullah Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ah Universal Hargeysa.